بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta inoo soo gabagaboobay diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaysa madaxtinimada Soomaaliya ama xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saddex cisho ayaa loo qorsheeyay maanta ayay soo gabagabowday ilaa hadda 39 murashax ayaa la diiwaan geliyay taasoo shahaadada uu guddoonsiyay gudoomiyaha guddiga Cabdimudane Cabdiqani Geelle hawshii sidaasay ku dhantahay oo ahayd diiwaangelintii haddii eebba idmo berrito waxaa bilaaban doonta hadal jeedintii murashaxiinta oo ka dhici doonta afisione ama tendada afisione halkaasoo maaragtay murashaxiinta loo qorsheeyey murashax walba waqti gaar oo mucayana oo 15 daqiiqo qof walba waqtiga uu leeyahay waxaa lagu soo saari doonaa oo maaragtay uu ku soo bixi doonaa liis la soo dhigi doono platformyada ama baraha bulshada aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka sidoo kalena warbaahinta waad ka arki karaysaan marka qof walba waa inuu waqtigaas ilaaliyaa waqtiga uu ku qoran yahay ayaa maaragtay aad muhiim u ah oo qof kasta lagula xisaabtamaya sidoo kale waxaa laga codsanayaa nuqulada koobiyaasha qof walba barnaamijkiisa siyaasadeed gaar ahaan 20ka ugu horeysa ee hadda caawa liiska ku soo baxaysa waxaa laga doonayaa inay caawa soo gudbiyaan dhammaantoodba waraaqadahaas qofkii aan caawa ilaa iyo shaqaaluhu waxay joogayaan 9ka ciddii aan soo gudbinin oo horeyna aan u soo gudbin haddana aan soo gudbin barnaamijkooda siyaasadeed berrito waxay noqonaysaa inay hadal jeedin un kaliya yeeshaan sidoo kale qofkii hadal jeedinta xilligeedii ka daaha dib looguma dhigayo sidaa darteed qof walba ama murashax walba waxaa lagu adkaynayaa inay waqtiga adkeeyaan amnigu waa la adkaynaya marka waxay u baahan tahay qof walba inuu aad uga taxadiro waqtigu imanayo sidoo kale dadka imanaya martida waxaa loo diyaariyey meelaha ay ka soo kala galayaan qoraal loogu sheegay hadday tahay warbaahinta hadday tahay xildhibaanada qof walbana waxaa laga codsanayaa inuu waqtiga ilaaliyo sidaasay noqon doontaa haddii eebba labada maalmood soo socda waxaana guddigu had iyo jeer oo la soo socodsiin doonaa wixii soo kordha ee ku saabsan arrimaha doorashada